marka tahay mid gacantiisa iskaga reebi kara cadowga inta badan la daba dhigayo waxaad noqotaa sidani oo kale. Real ugu dambeyn 11 dhibcood ay naawilaysay si ay buuqa isaga yarayso ayay Barcelona ka sareysaa. kulankii xiisaha badnaa ee Clasico Real Madrid ayaa hal gacan ku sii qabsatay horyaalka wadanka Spain ee La Liga oo ay 11 dhibcood hoggaankiisa ku qabatay kadib markii 3-2 ay ku garaacday Barca oo marti ugu ahayd Santiago. Real ayaa iska reebtay Barca oo dhammaan ka quusatay koobabka ay ku tartamaysa xilli ciyaareedka waxaanay guushani u xaqiijisay in iyadoo 6 ciyaarood harsan ay 11 dhibcood hoggaanka ku qabato. Jude Bellingham ayaa go'aamiyay guusha Real Madrid oo goolka libinta keenay oo dhaliyay waqtigii dheeraadka ah ee lagu daray ciyaarta waana markii saddexaad ay Real Madrid garaacdo Barcelona xilli ciyaareedkan iyagoo hore ugu karbaashay finalka Spanish Super Cup oo ay bishii January ku xasuuqeen Afaryahaliyay aragii horyaalka La Liga lugtiisii hore ee bishii October oo Los Blancos 2-1 ku dubatay kooxdan Barca oo ku sugnayd waqtigaasi gurigeeda. sidaasi oo ay tahayna markastaba uu yaqaanaa halyeeyga hore u talin jiray go'aamina jiray waxyaabaha qaarkood ee looga dambeyn jiray waa sidan Real haddii uu rabo inuu haddii ay taqaano inay doonto in si biyo haddii ay doonayso haddii aad rabto inaad inta badan go'aamiso wax madmadow kaaga jira cadow badanna leeyahay hore u gaadh gaadhiye waxaad noqotaa mid intaba iskaga reeba gacantiisa. waa sida Real ay ku samaysay Barca hankeedu ahaa inay 3 dhibcood ka reebto kooxda Real kadib farqiga 5 dhibcood ka dhigto ilaa mar dambena la isku sii dhaganaado. laakiin hadda xaaladdu gondahay ka baxday gacana kuma haye miyay oran jireen gondahay ka baxdo gacana kuma haye wata galaba rawday ya ugu dambeyn Real Madrid banaan cad ayay dhigatay horyaalka wadanka Spain 11 dhibcood oo nadiif ah ayayna ka istaagtay oo Barca shanteeda ay iskaga reebtay. Barcelona habeenay dadaashay doonaysay inay isbedel ku samayso hoggaanka horyaalka iyo waliba sida Real loogu badinayo inay ku guuleysato balse Real waxay sheegtay inay mar kale labaalay koob u socoto waxaan 3 ahayn labaalayda waa ku raaxaystaa bay tiri. kulan xiiso badnaa si weyn loo wada sugayay ayuu ahaa kulanku ugu dambeyn iyadoo garbasiman la rajaynayo waxa la isula dhacay in Real ay wadadaasi ka baxdo si la isku waafaqsan yahay. Barca halkaas ayuu ku dhintay hankeedii isaguna ahaa inay koobab ku guuleysato xilli ciyaareedkan waxaana inay tani ka dhigan tahay in weli guulaha Barca iyo Real Madrid ay iyaguna yihiin sidii weliba ay ahaayeen wax ku sii kordhay mooyaane waxba ismay dhimin. 105 guulood ayay Real Madrid iminka joogtaa halka 250 la galay barbaro Barcelona ay 100 badisay waa tirada guud taasi waxa jirta sekota ka ciyaarood u dambeeyay Barcelona iyadu laakiin ay dhinaca ku horeyso 22 guulood iyo 18 iminka 19 buu noqonayaa sawirkan ya waa kota ka game u dambeeyay marka sal loo xisaabiyo ya marka Real Madrid gacanteeda ayay iskaga reebtay kooxdan. habeen Real ay ka diiday ayay ahayd Barcelona in wax walba ay rabto siday rabto u samayso farxadda xataa inay ku sii nasato may doonin Real way ku horeysaa Barca goolka isla wax yar kadibna waa la jawaabaa. habeen Ancelotti nooc walba uu ciyaaray ayay xataa oo xitaa markii dambe ragga qaar u saaray kuwa kala keenay haye halkii un baa ciqaabtu laakiin ka sii socota. Shaafi alla yarxamay raaxmin ballen koob lagu macsalaameeyay kaas ugu dambeeyay waa la sii sido raqdiisi isagana ya inta aan kaga tagno Real iyo Spain aan dul istaagno dhinaca Premier League oo kooxda Liverpool ay xaaladda ku sii xumaysay kooxda Man City. Liverpool khamaar ayay u samaysay oo Klopp kulankan uu kaalinta labaad ku yimi wuxuu ahaa mid tacticadiisa wax badan ka bedelay xidiga waaweyn garoonka ka saaray oo aanay safkaba qayb ka ahayn. Liverpool 3-1 ayay Fulham kaga soo badiyeen iyagoo magaalada London booqday waxaanay ku faa'iideen khamaar uu sameeyay Klopp waqtiga dhigay ciyaartoydiisa muhiimka ahayd inta badan la arki jiray. 3 gool ay kala dhaliyeen Arnold, Gavarbacha iyo Choita ayagoo mahad celinayaan Liverpool inuu halka keeno. rajadooda horyaalka oo ay hadda ula sameeyeen Arsenal oo kulamo adag sugayaan laakiin farqiga goolasha kaga horeysa Liverpool taasoo ka dhigan in Liverpool iyo iminka kooxda la yiraahdo Arsenal iminka horka imtixaankii way ka baxeen. ku darso maalinimada Khamiista ayay ciyaaraysaa kooxda Man City nimankana way ka sii horeynayaan mar kale hadday habeenka kalena ku sii daraan xaajada horyaalka midhiisu waxay ku sii xumaan doontaa inay leebsato kooxda Man City oo Brighton iyo
kooxo kale halka usii fadhiyaan kulamada u hadhay maadaama iyadoo FA Cup-ka toddobaadkan ciyaaraysay. waxayna noqon doontaa in xaaladdu iyo culayskoo dhami uu sii fuulo kooxda City haddii ay iyaduna ka soo baxdo waa la arki doonaa sida xaal noqdo. laakiin maalin ayay ahayd Liverpool ay xataa samaysay toogashooyinkii ugu badnaa. ninka Arnold la yidhaahdo Liverpool wuxuu xasuusiyey Gerrard goolka markuu dhaliyay kadib goolkiisii lixaad oo laad xoro horyaalka Premier League ayuu dhalinayaa. kaliya xidiga la yidhaahdo Jimmy Redknapp oo 8 ayaa horta rikoodh ka haysta faawilada 8 hal xidigoo Liverpool oo laadadka tooska isagu dhalinaya. waana ninka imika Jimmy Redknapp falanqeeyaha Stephen Gerrard waa 7 taasoo ka dhigan in Arnold laad xoro horyaalka Premier League kii 7 uu dhaliyay. marka waa la wada joogi doonaa waana la arki doonaa maadaama imika garba siman la wada yahay sida muuqata. nimay ku hadhay hawlahaysa laakiin laakiin looran jiray hadduu laba ku roo yahay Man City iyagu way nimanka culayska u badan ee horyaalka Premier League u fuuli doona. waayo nimankani waajibaadkoodu way ka sii baxeen wixii loo baahnaana way sameeyeen. kaliya gambar gaaban un bay ugu fadhiyaan. war heedhaan tanna dul tagno niman halkeeroo masiiba baa jiro habaar iska haysto taas oo rafaad iyo ruuxruuxasho iyo dhul garaac iyo weliba madax ku socod iyo wadna garaac taageerayaashooda dishooday midna uma aabayeeleen dhinacba ka oran maayaan. oo nimankii Man United waxa la isay gel hore ku luqluqdeen ciyaalkii yaryaraay ee Conference laakiin tii ku dhacday allun baa ogaa. xataa waxay qiimeyn waayeen odaygii mulkiyadeeda meesha wax ka iibsaday Sir Jim oo laftarkiisu soo guuleystay markii uu kulankan imanayay saacad ka hor maratoonkii London oo soo orday uu ku soo guuleystay isagoo biladiisa situ yimi garoonka isaguna waana daawanayay. laakiin odagu uu dabaaldegay ugu dambeyn walow markii hore ay marada ka ridi gaadheen oo markay 3 dhaliyeen odaguna marda 2 jeer dabaaldegay uu ishubsaday waxa dhacaya. laakiin markii dambe odagu dhikariye macaan buu ku ridi gaadheen inuu sare jooga ka dhawaaba. maalin bay ahayd kooxda Man Unitedna waa habaar qabayaal caadi nimanka 3 iyagoo ku horeeyay ilmihii ku soo yaaceen rikoodayaashaasi ku baxsadeen iyo naane lama arkeen. marka runtii wax badan baa ka dhacay. xitaa umay dabaaldegin badi markii rikoodayaashu way sugaayeen fulay xantii ma moogana baa la yiri. Man United ceebteeda ma moogana xidigo. marka waxay sinyaan loo nimankii ciyaal ku dabaaldegay ciyaal ay ahayd bir hore ka luqluqataan xataa gool baba la diiday markii uu dambayso oo loogu shubi lahaa sidaas aan rikoodayaal bal ay isula tageen oo maalin bay noqon lahayd ceeb istul harsadaan. sidoo kale Man United kulankan taariikh ayay isagana ka samaysay 139 sano laga joogo. waxay noqon doontaa markii ugu horeysay 2 kooxood ku kulmaan FA Cup kadib markii ay City ka qaaday United koobka xilli ciyaareedkii hore. waa markii ugu dambeysay 2 kooxood ku kulmaan finalka FA Cup 2 xilli ciyaareed oo xidhiidh ah waxaanay ahayd 1885. kooxda Blackburn Rovers ayaa 2 xilli ciyaareed oo xidhiidh la ciyaartay kooxda QPR ama Queen's Park finalka tartanka FA Cup 2 xilli ciyaareed isku xiga. Blackburn Rovers QPR iyaduna waa kooxaha la waayay horyaalkan go'aamiyayaasha ka aan jiray xiliyadan oo kale inay kooxaha waaweyn isku nabaan la yaqaanay. haddaba waxaan dul istaagi doonaa kulanku markii uu dhamaaday Ten Hag muxuu yiri isagoona midda kale digniin u sii diray kooxdii Man City. waxaan rabaa inaan ku guuleysto finalka aanu Man City la ciyaarayno. waan hubaa inaanu haysano fursad wanaagsan oo aan ku guuleysan karno finalka inkastoo aanu la ciyaarayno kooxda ugu fiican adduunka. xilli ciyaareedkan waxa uu soo maray horumar badan laakiin sidoo kale hoos u dhacyo badan. ku guuleysiga FA Cup kama dhigayso guul. waxaan doonaynaa inaan ku guuleysano wax badan oo naga maqan oo aanu muddo arag. waa hadalka Ten Hag. ujeedkayguna wuxuu yahay inaanu FA Cup sidii aan ugu guuleysan lahayn wax walba aanu samayno annagoo ku xisaabtamayna cidana hor joogta oo aanu garanayno koobkana aanu isgaranayno. haye halaydinka helo markaa hadday saa tahay halaydinka helo. Klopp oo isaguna hadlay oo warbaahinta ka soo horbuuqday waxa uu yiri waxaan mar kale soo bandhigi karnaa wixii aan si fiican u samaynay qaybtii hore ee ciyaarta iyo xilli ciyaareedka. waxaanu ilaalinay kubadda waxaanu samaynay caawino waxaanu dhalinay goolal fiican waxaan helay xoogaa fursado fiican. intaas waxa dheer waxaanu samaynay isbedelo wiilashuna si fiican ayay sameeyeen.
waxaan helnay xoogaa fursado fiican intaas waxa dheer taasi oo uga jeedo in kooxdu ay iyadu imika joogto kaalinta labaad. waxaanu samaynay wax badan oo ka dhigan inaanu anagu sii guulaysano Premier League iyaga kulankayaanu sii dheelno kuwa kalena aanu guulaysan doono. iyo khalkhalka lagu ridayo waa City nimay ku hadhay hawlahays annagu ka baxnay hal lagu helo yaa ilaa marka u dambeysana annaga waa naga dhibcaan inaanu guulaysano. inamadeeduna way wanaagsan yihiin wax kastana way u diyaarsan yihiin iminka. ugu dambeyn City iyaduna waxay doonaysaa inay bal FA Cup kan ku darto tiradii iyo haddii la ku roonyahay iyo horyaalka maadaama championka inta bile iyo baas ay gashay oo bahala galeen uu noqday yaa marka FA Cup-kii finalkii Man United baa lay soo reeyay ugu dambeyn horyaalkii isagana waa kan halkan aad laftarkiisa isagana la sumiciyo lisanaya imtixaan adag baa sugaya. intaas kuma ka xubintu waa karadkiya kala haadinta aniguna waxaan ay tiri intaynu xubintan mid xigta ku kulmi doonno inta ka horeysa sida ayaa maana Allah. Smart Dental Clinic ku dhoola cadee $100 kaliya qiimo dhimis 40% ah. Smart Dental Clinic xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay ku samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed. adeegyada qiimo dhimista lagugu sameeyana waxa kamid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo kaliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin. haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin. sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh. hamogaanin Smart Dental Clinic oo ku taala gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka Hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tagaysa xarunta dabdamiska inta aanad gaarin waxay ka soo